Madaxweyne Farmaajo oo ugu hambalyeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sanad guurada lixdanaad. Halkan waa Qowl Media TV. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay saraakiisha, saraakiil xigeenada, alifleyda, dableyda iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka iyo qoysaskooda lixdan guuradii kasoo wareegatay aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidan awood iyo tayo leh ay muhiimad weyn u leeyihiin qarannimadeena iyo dib u soo nooleynta dowladnimada dalkeena Soomaaliya. Sidaas daraaddeedna ay dowladdu qaaday tallaabooyin muuqda oo ku aadan tirakoobka, xaqsiinta iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida gaar ahaan militariga. Ciidanka xoogga dalka waa astaan qaran oo aan u qaybsamin qolo iyo qabiil midna, waxayna u taagan yihiin oo loo carbiyeeyay difaaca haybadda qarannimo. Weli ma joogno meeshii aan rabnay, laakiin dowladdu waxa ay dhaqaajisay qorshe mug weyn oo ku aadan dib u dhiska ciidan Soomaaliyeed oo tayo iyo tirakoob leh. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo bandhigay guulaha isdaba joogga ah ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo hooyeen dagaalka argagixisada iyo sida naf-hurnimada leh ay uga xoreeyeen deegaano badan ay ku dhibaateyn jireen shacabka. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay sida ay u sareyso hamiga iyo niyadda saraakiisha iyo ciidamada ku sugan furmaha dagaalka oo ay ka go'an tahay inay dalka ka xoreeyaan argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabka birmageydada ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay saraakiisha Soomaaliyeed ee rug-cadaaga ah ee ku sugan dugsiyada tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gudaha dalka si ay aqoontooda iyo khibradooda u dhaxal siiyaan jiilasha soo kacaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa Alle u baryay dhammaan halyeeyadii ciidanka xoogga dalka ee naftooda u huray amniga, nabadda, qarannimada iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed uu jannada ka waraabiyo.